أنا والله صاحبك ورك أنا صاحب نو لا هو أنا كل دحدين wiil abgaala ama gabar abgaalo kafee tagi karta oo sheekayn karta oo ficil sheekaysan kara ma jirto qof abgaala kaftanka ka xiran eeba haysata ma hadli karno ma kaftami karno wax dhintay wax dhintay asayba sidna waagi soo bariyo waxa weeye qoraalkaas dee afar saddexda eray ku qoran yihiin oo anigu aanan u arkahayn sharciyan marka indha sharci lagu fiiriyo in wax weyn ay ku qoran yihiin aan ila muuqanin oo afar faatixo aan dhaafsiisnayn maaragtay waxa xaqiiqo ah intii aan la soo saarin in madaxweyne Muuse Biixi lagala tashaday loo akhriyay la isla eegay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قولنا ما توحن كنتو نستاقي دونا شركي قراوة وكفر بقر برهان بقر موسى او كاشان اياه سلطان قراسي اياه دعيسو وموقضة إفافالها يو حيالها دعيسو يودن وشيق دونا وانا دول استاقي دونا شركاس بقر كودانتو وكالها iyo qodob badal rabay laga soo saaro iyo boqorku doorasho wan maamuun boodiyay inuu cagta ku dhufto rabay laakiin asagii bay shirki cagta uga dhufteen waa dul istaagi doona waa sharaxi doona qodob kale aan dul istaagi doona waxa weeye ninkii ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka hore Soomaaliya Mahdi Guuleed oo beesha daarood iyo SSC xamanaya ayaa ayadana la soo qarxiyay oo isla isaaqi soo qarxiyeen maxawar jacayso waa garxajis waxaan saawar jacayso soo qarxisay asagana waxba ay kaga taaban doonaa meelihii uu dul istaagay qodobka saddexaad ee dul istaagi doona waxa weeye meel kasta oo isimada daarood joogan baaq ayaan u diri doonaa waxaana ka codsan doonaa masayda isku dagaalaysa shabeellaha dhexe haddii la ku rooyahay abgaalka sheeganaysa abgaalku waa masayban isri dhaqanna ma leh diin ceeysana ma leh saan arkay ee guryaha iyo caruurta gubaysa waxaan doonayaa isimada daarood ama isimada habargidir ama isimada xawaale ama isimada haddii la ku rooyo burursade muslimka ku hareeraysan ee Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaas ugu tagaan oo masaydaas cawaanta kala celiyaan baaq baan kaga jeedin doonaa agoormo garowe shalay waxaa lagu soo dhaweeyay boqor burhaan boqor muuse oo ah boqorka guud ee beelaha daarood boqorka waxaa soo dhaweeyay raggii ugu cuslaa oo soo dhaweeyay waxaa ka mid ahaa suldaan garaase allah xafide boqorka iyo suldaanku halkaas shir baan ku qabanaynaa bay dhaheen shirkaas ajandihiisa waa la sii ogaaday oo isimadii kale ee mandaqada ama isimadii geeska hadhihin bari hadhihin sanaag iyo hadhihin mudugba iyo nugaal lagu qabanayay isinkii matoobada dhigan jiray intuba ajandahay sii heleen ajandahaas oo ah mid ay mucaaradku riixayaan oo ah 66 baan u baahannahay in doorasho lagu qabto shirkaas waa la qaadacay cagtaana lagu dhuftay waxa ugu horeeya oo shirka cagta ku dhuftay sulda ninka la yiraahdo islaan ciise islaan maxamed oo ah marka la joogo nugaal isinka buddigaha oo ah nugaal looga dambeeyo sidoo kale waxa qaadacay shirkaas inay yimaadaan islaam bashiir islaam cabdulle islaam ciise islaam maxamed suldaan saciid suldaan cabdisalaam waa al-saldaniya warsangeliya fasaligeedu yahay baran cagtu ku dhuft waana saldanadii guud oo harta ugaas xasan ugaas yaasiin oo ah ugaaskii guud ee beelaha hartiyaasna waa dishish halka ay bari beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje guud ee cali saleebaan cagtu ku dhuft beeldaaje ismaaciil beeldaaje albari halka iyo cali ibrahim beeldaaje cali faarax halka iyo siwaaqroon haddii la ku rooyo suldaan cabdirashiid muuse shire garaadkii dubays سعيد محمد سمطر سلطان كي دبيس محمد عبد الله عرتن اسمه دمان يا إسلامكي إسلام بشير إسلام عبد الله مدو وحلاقة ويدين شري إيوه إسلامكي جود فديي عرن نقالات ونقال أوكل حرنيت أنت أسمع عقد يكون دفتين مركلي مركب على الشرية لحية دورش الله يحرن سنية دورش الله عامة بيش أسوحها فدية سلطان قراسة أو
laleeyahay isaga dhigay gogosha iyo boqor burhaan oo isku mabda ah iyo dee nimankii reer bari oo boqorku ku tirsan jirayo geesaha ka fariisan jirayna falaysa minna bay dhaheen falaysa minna weliba qaybtood sida beeldaajo kale oo hadlana waxay dhaheen kuma jirnooy dhexdhexaad baan nahay 66 anagu duulin mayno shirkaasi sida inuu ku dhicisoobay ayay u badan tahay haddii ay wax ka soo saaraan ama dhahaan waa shirnayna garoowe ila magac isimay ku hadlayaan nugaal oo islaankii fadhiyo mudug oo islaankii kala fadhiyo suldaanki oo sanaag fadhiya iyo beeldaajaashii ugaansadii fadhiyay bari waa wada hadlayaan waxay dhahayaan laba qabno halkaasna ceeb iyo weji gabax ayaa ka imaanaysa boqorka marada kaga dhacaysa ilaahay marada kaba tuure ma boqorkeennii shirkaasi marka mid cusub og yahay dhanka kale ninka la yiraahdo madaxweyne firdhiye oo shalay ka soo degay magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka caasimadda SSC Khaatumo ayaa ku dhawaaqay degdeg in la isugu yimaado shirweyne beelaha hantiya halkaas iyo Laascaanood shir ka dhici doona ayaa ayadana isimadu uga arkisan doonaan saan filayo halka SSC iyo xaalka Puntland maadaama ay isimadii harti kaliya ma aha isimadii daarood leelkasaha dhina oo tablaha dhina cid kasta ay isugu imaanayaan Laascaanood shirweyne daarood ah oo waliba mandaqada geeska SSC Khaatumo iyo Puntland la isugu imaan doono halka ayaa wax lagu jeexjeexi doonaa xaalka Puntland iyo xaalka diyaalka Reebaalkiba shirkaasina halkaas uu maraya oo shirkii halka boqorku yimid shir ka dhicisoobay ayuu ogyahay ilaahay kama dhiciseeyay qodobkaas halkaas aan dhigay qodobkayga aan dul istaagay waxa weeye intaan mahdi guulada soo laabtay halkan meeshii la oran jiray shabeellaha dhexe nooyo Soomaali baan nahay dad wada dhashay baan nahay islaam baan shabeellada dhexe waxa ka dhacayahay wax indhaha laga qarsan kara ma maalin dhaweyd waxaad arkayseen oo maalin kasta arkaysaan culumadayada Soomaaliyeed oo masaajidada Falastiin uga ducaynay barnaamijka Muqdisho lagu qabanay Falastiin inta barnaamijka Muqdisho ka dhacayay masuubadaan ay tusayo masuubadaani shabeelle ka dhacaysay shabeellaha dhexe ka dhacaysay walaalaheen weeye waa dad Soomaaliyeed ila daawo halka ka dhacay أنا واقف صاحب جوارك أنا صاحب نو لا هو أنا كل دحدين halka waxa ka dhacayahay waa dad Soomaaliyeed oo islaynaya islayntu waa isdaanta rag waligood isdili jiray qabiil waligood isdili jiray war maatadii baa iska bireynaya guriyihii baa iska gubaya xoolihii baa la leynaya xoolihii ay ciyaalkii yarka iyo dumarkii baa la leynaya hooyadoo ilmaheedii wato naas nuujinaysa guriga ku jira ayaa baasiin lagu bilaya oo guriga lagu gubaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaan fiirshay bil ku dhow bay arrin socotaa bil ku dhow bay socotaa arrinta shabeellaha dhexe wax u damqanaya ma arko hawiye ka dhidhiyay ma arko abgaalku ma baleba wax isqabtaba ma leba waa masay dhashay waxaan ka naxay waxaa hadlay imaamka abgaal asagoo leh madaxweyne ka soo laabaniya habargidir ka soo laabo kaale dhulkaagi nabadee waa madaxweyne qaran ninku leeyahay kaalay beelaha u garna asaguna waa iimaankii dhammaaya abgaal dhaqanka noocaas ka warrabay ilaahay ku dhaarshay war waxaan baa u dirayaa oo codsanaya oo walaalayaal u leeyahay beelaha Soomaaliyeed habargidir adiyaala ku rooyahay murursade xawaale gaalceel gungundhabe daarood ma reexaan ma jeerteen dhul bahante adiyaala ku rooyahay dish war cid kasta oo daarooda ogaadeen cid kasta oo daarooda meesha ka dhow war ilmaade riyaal leelkase mudug baagitaan oo dhowdin hawiye ilmaade riyaalow war ilaahay xaqiis loo dhawaanaysan war isimada daarood baan la hadlayaa war kuwa hawiyaan la hadlayaa war walaalayaal masaydu dhashay fariinteeda gaarsiiyay